saaxiibadeed ee yaraanteedii meel ku soo wada barbaareen, waqti badanna soo wada qaateen, haddana ay meel kula nooshahay ayay ninkii ka guursatay. Sheekadan waa sheeko cajiiba, fadlan noo sii sheer garay, like-kana ha naga ilaawin. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabteeda qaaliga, waa mar kale iyo muuqaal kaloo cusub. maxaan dhadhan ku hayo dhayaho keliga rabin inay kugu dhaygagaan. Qisadan ama sheekadan waxa ay dhex martay laba gabdhood oo saaxiibo ahaa ilaa iyo yaraantoodii, in muddo ahna waqti soo wada qaatay, waqti badanna wada socday. Labadaa gabdhood waxaa lagu kala magacaabi jiray Layla iyo Farxiyo. Layla iyo Farxiyo waxay ahaayeen gabdho aad isku jecel, saaxiibtinimo, qiimo iyo qadari fara badanna tan kale ay u hayso. Inta ay wada socdeenna marnaba wax khilaaf oo soo dhex maray ma jirin labadooda ama wax dagaal oo ka kala dhacay. Inta badan waxay ahaayeen gabdho aad isku qadariya, waqti fara badanna soo wada qaatay, ilaa heerkoodii waxbarashana hal meel ayay ku soo wada qaateen, hal iskuul ayay wada dhigi jireen, welibana hal fasal, lama kala waayi jirin. Tan haddii aad aragtaa, tan kale inaad aragta qasab ayay kugu tahay, oo inta badan way wada socon jireen. Waxay ahayn laba qofood oo aad isugu kalsoon, aadna iskugu dhow, midba midda kale aad u xushmaysa, sirahoodana isku qarsada, wax walbaana wada wadaaga ayay ahaayeen. Waxbarashadoodii ilaa heerkii dugsiga aad ayay ugu murugaatay. Tan kale saaxiibadeeda ee ka fogaanaysa, saa garab ayay isku ahaayeen. Gabdho xaafad isla degan, deris ah, hal meel ku soo wada barbaaray, waxbarashada oo dadkii oo dhan ay ka goosatay, sida ay saaxiibadeed u weysay iyo dadkii oo dhanna ay uga go'day. Layla iyo reerkoodii waa ay tageen meeshii u socdeen, wayna nabad tageen, halka Farxiyo ay diiday waxbarashadii oo dhan ay ka soo jeesatay, waxna lagu kari waayey. Waalidkeed si kastay ula hadleenna waa ay ku madax adeegtay in aysan baran jaamacad oo aysan niyad u haynin, maadaama ay saaxiibadii garabka ay ka dhigi jirtay ay ka fogaatay. Layla sidoo kale ayada laftirkeedu waa ay diiday waxbarashadii jaamacadda, laakiin reerkeeda ayaa ku qasbeen oo cadaadis fara badan saaray. Waxaana lagu dhahay, anaga dartaa ayaan waddankeena uga soo safarnay, waa qasab in aad barataa jaamacaddan, qasab ayayna kugu tahay. Sidaas ayayna ku bilowday Layla jaamacadeedii. Farxiyo sidii ayay guriga ugu jirtaa, waxbarashaba daaye, dadkii xitaa lama hadasho, oo dhoola caddayntii iyo farxaddii waa ay ka tagtay, halka ayayna isaga mashquulsan tahay. Dhowr bilood kadib waxay qadka taleefanka iska barteen wiil, in muddo ahna ay wada socdeen. Wiilkii waxa ay ku heshiiyeen guur ayuu u soo bandhigtay. Farxiyo way ka ogolaatay, maadaama ay wax mustaqbal kale ah aysan haynin, waxbarashadeedina halkaa ay ku joojisay. Waxay iska go'aansatay in ay guursato. Layla iyo Farxiyo sheekadooda sidaas kuma dhammaanin, ee waxa ay wada xiriiri jireen ama ay ka wada hadli jireen qadka taleefanka. Sidaas ayayna xogahooda iyo sirahooda ay isku dhaafsan jireen, oo weli mid walba midda kale sidii ayay u xiriirisaa. Farxiyo waxa ay la wadaagtay arrinteeda saaxiibadeed Layla, wayna u sheegtay in ay dhowaan guursan doonto. Wiil ay muddo wada socdeenna guur oo u soo bandhigtay, ayadana ay ka aqbashay. Layla way u hambaliyeysay saaxiibadeed, waxa ayna tiri, hambalyo, maadaama aadan waxba aadan haynin, iska guurso oo mustaqbal iska samayso. Farxiyo waxaa la gaaray xilligii la guursan lahaa, waana la guursaday. Waxa ay noqotay qof reer leh oo qoys ah, halka Layla ayadana jaamacadeedii ay heer wanaagsan ka gaartay, oo ay dhammayn rabto, wax yarna ay u dhiman yihiin. Layla jaamacaddii waa ay dhammaysay, ayadana sidoo kale waa la guursaday. Saaxiibadeed ayayna la soo wadaagtay, wayna u sheegtay. Saaxiibadeed Farxiyo sidoo kale ayadana way u hambaliyeysay. Dhowr bilood kadib waxaa dhacday Farxiyo ninkeedii in uu u sheegay in uu guuri doono, oo magaaladana uu ka tagi doono, oo shaqana u raadsan doono dhinacaas iyo wadamada Afrika, welibana waddanka ay joogto saaxiibadeed Layla. Farxiyo arrintaas aad ayay ugu faraxday, oo waxa ay soo xusuusatay saaxiibadeed Layla ay mar labaadna dib ay ula midoobi doonto. Farxiyo arrintaas
saaxiibadeed Leyla lama wadaagin umana sheegin waxa ayna rabtay safarkeeda in ay sii wadato ee welibana si lama filaan oo kedis ah ay saaxiibadeed uga tagto. Farxiyo iyo ninkeedii waa ay baxeen safarkooda iyo halkii ka sii wateen. Waa ay tageen meeshii ay u socdeen wayna nabad tageen. Maalmo kadib waxaa dhacday ayaga oo labadoodaba suuqa ka wada adeeganaya in ay si kedis ah ay ku kulmeen labadoodii Leyla iyo Farxiyo. Leyla aad ayay u faraxday waa ayna naxday. Waxay tiri ma riyo ayaan ku jiraa mase waa run? Gabadhan saaxiibadeeda meeshan kama filaynin. Way naxday marna way faraxday. Waxay tiri maya saaxiib riyo kuma jirtid waa run waa aniga Farxiyo. Waxay tiri saaxiib qof xun ayaa tahay maxaad iigu soo sheegi weysay safarkaada? Anigaba safarka kedis ayaa layga dhigay marka sidaa darteed ayaana kuugu soo sheegay. Waxaan rabay in aan si lama filaan ah kuugu soo sheego oo isku aragnaa aniga adiga. Ismarxabeyn iyo salaan dheer kadib waxa ay kala qorteen taleefanadoodii waa ayna ballameen. Mid walbaaba ayada oo faraxsan ayay gurigeedii dib ugu laabatay. Leyla reerkeeda ayay wacday waxa ayna u sheegtay in ay Farxiyo ay magaaladan degan tahay laguna soo guursaday. Aad ayay ugu farxeen dib u midoobida labadan gabdhood ee saaxiibada ah ee in muddo ah kala maqnaa. Leyla waxay wacday saaxiibadeed Farxiyo waxa ayna ku wargelisay inay maalinka Jimcaha ah iyo ayada u casuuman tahay weliba iyada iyo ninkeeda ay isa soo raacaan. Farxiyo arrintii way ka ogolaatay wayna ka aqbashay. Leyla waxay u sheegtay ninkeeda in ay saaxiibadeed iyo ninkeeda oo Soomaaliya ka imaaday ay maalinka Jimcaha casuumaad u sameyn doonto. Ninkii Leyla wuu ka ogolaaday waana uu ka aqbalay. Sidaas ayay casuumaadii uga samaysay waxaana la gaaray maalinka Jimcaha. Leyla iyo ninkeedii iyo Farxiyo iyo ninkeedii halkaas ayaa qado iyo waqti farxad leh lagu qaatay oo halkaa ayaa la isku bartay in badanna lagu wada sheekaystay. Waxaa la gaaray xilligii galabnimadii waana ay kala tageen oo qof walbaaba hawshiisa ayuu raacday. Farxiyo waxay gurigeeda dib ugu laabatay ayadoo faraxsan. Leylana sidoo kale farxad ayaa farxad uga sii darsantay. Farxiyo wax caruura ma aysan dhalin laakiin Leyla waxa ay haysataa 2 caruur ah. Intaa kadib waxaa dhacday in ay Farxiyo iyo ninkeedii ay isku dhaceen maalin kale oo ninkiina uu nin xun ku noqday oo mar walbaaba dila ama garaaca. Arrintaas saaxiibadeed ayay la wadaagtaa ayada ayayna garab ka dhigataa maadaama aana reerkeeda iyo ehelkeeda aana meesha u joogin. Sidoo kale waxaa gurmad u fadhiyay Leyla iyo reerkeeda oo ka canaantay ninka. Xaalka wuxuu sidaas ahaadaba Farxiyo waxa ay qaaday uurkeedii uu horeeyay. Sidoo kale haddana waxaa isku dhacay Farxiyo iyo ninkeedii ayuu garaacay ayadoo uur leh. Jirdil fara badanna uu ku sameeyay ilaa uu dhiigbax fara badan oo ku imaado oo ay ka miir beesho. Ayada oo cidlo ahna oo dhiigbaxaysa meeshii taal ayuu guriga uga tagay. Waxay soo wacday saaxiibadeed arrinteediina ay la wadaagtay. Halka ayaa waxaa ka baxay Leyla iyo ninkeedii oo guriga uga tagay. Waa ay soo qaadeen isbitaal ayayna geeyeen si ay u daryeelaan caafimaadkeeda. Waxaa wacay ninkii qabay Farxiyo wiilkii Leyla qabay waxa uuna ku yiri maxaa sidaan u samaysay? Qof xun ayaana tahay maxaaskaada uur leh ayaa sidaan loo garaacaa. Asxaabay la socda sheekada qaybteeda 2.